السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواada xalqadeenan maanta oo kamid ah xalqadii hore ee designing a blog bay sii daba socotaaye waa xalqada aynu kaga hadli doono using charts. Chartka isticmaalkiisa. Chart maxaan uga jeedaa? Chart qofkii aan garanayn markaynu joogno bloggeena waxaa la yiraahdaa kuwan oo kale chart la yiraahdo. Iminka Facebook oo kale F-tire, Twitter calaamada yar oo kale iyo waxyaabaha yar oo kale. Xataa kan oo kale waa chart. Kan waa chart. Popular posts waa chart. Find us on Facebook waa chart. Kuwan oo dhan charts baa la yiraahdaa. Charts kaasaynu isticmaali karaa hadaba. waa say loo isticmaalaya. Waxaan tegnaa layout bin tegnaa. Maalintii hore layout kan isla soo aragnay. Horeynu soo qaadanay. Waxaan tegnaa halkan add a chart. Marka waxaad rabtaa laba chart baan halkan ku isticmaalaya. Add a chart isticmaala. Ku soo darban jeeda add a chart bin ku soo darayna. Marka halkan waxay ku suura gelinaysaa Google baa blog iska leh in charts aad isticmaali karto mar kastaba. adigoo ka soo qaadanaya bartan. Marka charts waa kuwan oo kale. AdSense oo kale sidoo kale HTML marka waa Google AdSense xayeysiisyadiisii HTML iyo JavaScript oo markaad code ahaan oo kale aad wax soo gelinayso oo tusaalehaan find us on Facebook taas ayaan meesha ka saaro remove baan iri intaan edit iri ayaan remove iri tusaalehaan edit intaan iri ayaan remove iri marka gabi ahaanba find us on Facebook ba meesha ka baxaysa. Markay ka baxdo seen u soo celiyo waxaan u baahanahay in HTML and JavaScript kadib aan yiraahdo kadibna aan ciwaanka sare title u bixiyo oo HTML and JavaScript aan ku dhufano bal waxaad arkaysaa title magac u bixi. Marka haddii aan ka saaray find us on Facebook ayaan qorayaa kadib koodkii maalintii ay soo qaadanay hore xalqadii hore ayaan halkan ku paste gareynayaa save baan oranayaa halkan uu soo galayaa arrangement baan sameeynaya waan soo kala horreysiinayaa find us on Facebook baan soo horreysiinayaa kuwaas oo kala charts la yiraahdo. Marka add a chart waxa ka buuxa charts fara badan. Waxaad ku soo dari kartaa mid profile ah oo adigu aad iskaga waramayso information naftaada ku saabsan oo oran karayo magacaygu waa Cabdishakuur waxaan leeyahay blogga Muxtarif sidoo kale waxaan leeyahay kanaalka Cabdishakuur kanaal page-ka Facebook baan leeyahay waxaan qabtaa waxaas oo kale waa profile baa leeyahay. Markaad ku darayso isagana add baa leeyahay. Markaad ku darto isagana profile information-kaaga aad qoraysaa meesha doontaad dhigaysaa jiidaysaa. sidoo kale page header-ka hadii aad iska saartay oo kale image ta sawir rabto meelaha aad soo geliso waad soo gelin karaysaa oo image-ka kala soo ekaanaya halkan oo kale markasta soo gelinaysa calaamadaas aad ku dhufanaysaa. kadib bartan title ayaa yaala title-kaaga maxaa halka ka soo bixi doona xagga sare sawirka macnaha markaan halkan oo kale joogo waxaad aragtaa halka qoraal baa ku qoran popular posts ciwaan oo kale adu marka ciwaanka sawirkaaga ka dul muuqan doona waa maxay title-ka my image oo kale aan oran karayaa ama owner oo kale aan oran karayaa finance on Facebook oo kale aan oran karayaa waxaan doonaa oran karayaa kadib halkana link baan ku xirayaa ama linkiga ka bax link ma isticmaali kartid laakiin choose file baan oran karayaa sawir baan soo qaadan karayaa computerka gudihiisa aan ka soo qaadi karayaa aan soo gelin karaa kadibna waxaan leeyahay shrink to fit isleekaysi afar taareeroodba save baan leeyahay kadibna cancel saasaan samayn karayaa. Postiskayga wax ma ka bedeli karayaa xaggan layout-ka marka kaasi waa add charts-ka inta inaan postiska soo noqon add charts-ka wali sii guda galno page oo kale page hadii aan rabo inaan ku soo diro halkan aan kaga dari karayaa linkiyo aan rabo dibadda oo aan iska dhigdhigo noocan oo kale link kan oo kale la yiraahdo qoraal yar oo saasoo buluug oo markaad soo dul saarto gacan yar oo isku bedelayo mouse-kaaga sidoo kale line oo hoosta ku yeelanaya kaas la yiraahdo link baan ku soo dari karayaa linkiyada noocaas ee qaawan qoraal yar oo text baan ku dari karayaa popular posts-ka waanigi nirwad ka saari kartaa way remove gareyn kartaa hadii uu ka remove garoobo halkan aad kaga soo daraysaa search box hadii aad rabto halkan inaad search box soo geliso oo kale leedahay aan raahna search box baan rabaa inaan soo geliyo marka kii hore halkaas inoogu jiray template-ku inoo la socday hadii aan template-kaaga bila search box uu yahay halkan aan soo gelin karaa search box seen soo gelinaya barti charts-ka intaga search box baan leeyahay kadib markuu halkan say search this blog waxaan oran karayaa halkii sidii maalintii hore kale ka dhex baadh sidii maalintii hore aan soo aragnay kale marka this blog ka dhex baadho linked from here halkan ka dhex baadho webka gudihiisa ka dhex baadho waxaas oo dhan waa asaas search box ku soo ekaanaya noocan waa ekaanaya waa ka
search noocaas preview nooca uu soo baxayo waa ka marka save baan oranaya save kare halkan maxaa la soo dhaxgaliyay ka dhex baadhka bartani soo gali baan oranaya halkan kadib save arrangement baan oranaya kadib blogayga aan tagay waan refresh gareynaya way maxaad aragtaa halkan ka soo baxay search box yar oo gaaban iska cool aad iska yar qurux badan laakiin kii hore ka sii qurux badnaa kaas ayaa ka sii qurux badan marka search box ka yar baa ku soo baxay oo halkan laga dhex baari karay wax kasta oo lagu dhex qoro sss ciwaanka hadii halkan ku qoro uu soo boodaya search aan yiraahdo marka search box ka waa ka haddaba haddii search box-kan aad ka qawaday oona kula qurux badnayn adiga ood rabto mid qurux badan inaad soo boodhato hal mid talaan ku siinaya waxaad baari kartaa google-kaad iska tegi kartaa waxaad ku dhex baari kartaa search box oo kale qoraal noocana search box course oo kale search box course oo kale kadib search box website jira search box ku siinaya search box kala duwan ka doonaysa ku sii dhufo code-kiisa sidii Facebook maalintii dheedayn ugu sameynay link-kan markay u sameynay kan page-ka markay u sameynay oo kale code-kiisa oo copy garayso kadib bartii charger-tiisa ku kaalay add a charger iyo ku soo dar kadib wuxuu baad rahay html charger saas oo dheh kadib magac u bixiyo title oo halkan title inta ku qorto search box oo kale ama ka dhex baadh oo kale kadib wixii aad soo copy garaystay halkan gali qaabkaas ayaad soo gelin kartaa wax kasta oo kale marka charter-tisku intaas oo kaliya tamaha intan oo kala jira qaar baa dibadda ka keenaysa wixii dibadda aad kala timaado halkan aad ka weyday ee dibadda kala timaado aad meelaha kala ka soo qaato code-kii aad sidato waxun baad oranaysaa ka kaliya halkan html and javascript aad oranaysaa kadib halkaas aad ku paste garanaysaa sidii aan ku tusay imka waxa jira more charter-tis kale oo fara badan oo sida contact form yaro lagu la soo xiriir karo contact form hadii aad xasto bloggeena waa ka ku yaala oo kale aad halkan aad kaga soo daraysaa hadii rabto mid kale inaad dibadda ka keento sidoo kale code-ka waad soo qaadanaysaa kadib waxaad leedahay sidii aan ku sheegay html aan javascript oo wikipedia aad ku dari karaysaa box yaro wikipedia waxaan aan soo money qaar kale aad fara badan ayaad ku dari karaysaa kulba juhdigaaga iyo dadaalkaaga adoo meelaha aad ka soo qaato wixii kula saacad baad ku soo dari kartaa hatta saacad waxaan filayaa inay meelahan ku jirtayba 007 clock waa ka 007 clock waa kaasoo kale saacad baan ku soo dari karayaa aan ku daraba add a chart aan yiraahdo kadib waxaan leeyahay word clock ayaan kale word clock oo kale qaabka 750 pixel oo kale noqoto waxa soo kale ku leeyahay save un bas qoranaysa adigu kadibna save arrangement kadibna bloggaagi baad tagaysaa refresh baad siinaysaa maxaad aragtaa bartan saacad yar baa iska soo gashay marka aad uma qurux badna tani cool maaha mid kale 250 inay ka sii yareyno ayuu ahaa 250 pixel oo la 200 aan ka dhigno oo kale kolba inta ilaa inta leekaanayo ka baxayaan scrollada meesha ka baxayaan secondadii minutadii iyo hours marka saacad inta dibadda code-keeda ka soo qaato oo kale sidii google-ka inta tagto clock codes oo kale ayad oranaysaa kadib saacadu ku siinay qurux badan taad jecesha ku dhufo code-keedii soo qaado kadib edit html aan tiri saasad u baari karaysaa charter-tiska waxaan filayaa in aan kuu soo yara dhaweeyay fikirkeeda oo aan in yaroon bal waxoogaa isku dayay inaan ku yara fahansiiyo charter-tiska walow yaana si fiican ku fahansiinba ama si fiican aan dhiginbe ood wax kaaga baxeen imka adigun baa sii qurqurxin doona marka ha igala bakhaylin hanagana iga xaaraantimayn in aad like garayso sababtoo like-tan waxaan ku ogaanayaa in wax xiisa la aan soo jeediyay anigana way soo yara jiidanaysaa oo waxaan ku dadaalayaa xalqada ina fara badan laakiin marka kale boring baa noqonaya iga ilaali marka boring gacanteeda ay ku jirta inaan boring noqdo iyo inaan boring noqon waayo inta kulmi doona xalqada dambe. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.